سليم ماجن waxaa jirta in ciyaarihii Olympic-ada ay bilaaban doonaan muddahan fortnight ama 2 week ka socdo soo hor noogu sheegtay dadka Soomaaliya TV Universal Dawda u sheegtay kama aadan qayb galin waayo injury ay ku soo gaaray marka 2012 markuu London ka dhacay kulli insha Allah waa ka qayb galaysaa marka maxaad waan ahaan ama encouragement ama dadka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ciyaaraha jecel aad kuwaanin lahayd inay ka qayb galaan ay si diyaariyaan Olympic-ada ciyaaraha meel walba ka dhacay kubadda cagta kubadda miis maxaad u sheegleed dhalinyarada Soomaaliyeed ee role model-ka u tahay oo ku daawada mar walba horta way jiraan alxamdulillah dhalinyaro fara badan oo talent leh ciyaartana aad u xiiseeyaan waxaan kula talin lahaa in ay isaga soo qoraan naadiyo ay membership ay ka noqdaan waayo ciyaaryahanka hadduu naadi uu ciyaarayo waxa uu helayaa waxyaalo fara badan ayuu aqoon ka korarsanayaa xagga disciplinkii sportskuna ma ahan waa la ciyaar laacibkuna hadduusan discipline lahayn lama qaadanayo marka dhalinyaradeena Soomaali oo sida haddaba aad u jeedid talent fara badan ku jira laakiin yeesan halkan kaliya aysan ku ciyaarin kadibna aysan guriyahooda aadin waxaan ula talnaa inay klaabyada ay ka qayb galaan klaabyada meesha ay kubadaha meesha ay ka ciyaaraan marka waxaan ula talin lahaa runtii yeesan ka caajisin sportsku waxaan aaminsanahay maanta sportsku waa tan kaliya sumcadeena iyo sharafteena soo celin karo marka dhalinyaro ha caajisina dadaalkiina halkaas ka sii wada waxaa jirta in lagu wacay magaalada Leicester aan hadda aan joogno oo aad joogtay ilaa 2 asbuuc say u aragtaa Eurosong sida u soo qaban qaabiyeen dhalinyaro ilaa 400 isoo keeneen runtii oo wax aad u dhib badan ama difficult marka 400 soo hatta 4 Soomaali meel isoo keentay dibkooda iska leedahay 400 isoo keeneen si isugu soo hagaajiyeen say u aragtaa magan arintan runtii waxaan u arkaa arin cajaa'ib leh waayo intaasoo dhalinyaro ay qurbaha ku wada nool hadee Soomaali soo wada yimaadeen waa wax wanaag ah laakiinse haddana baryahan aniga waxaan soo dhaxgalay sportskii goordhow waxaan ka wadaa Soomaalida waxaan soo dhaxgalay goordhow waxaan arkaa runtii khaladaad fara badan waxaad moodaa in la iloobay dhalinyaradii macnaha somehow way tournament waa loo suubinayaa laakiin waxaan aan arka isdhihi karaa dhalinyarada kharashkii faraha badan aan la gelin lahay dhalinyarada in la gelinayo dhinac kale ama dadkii hore gaboobay dadkii hore alxamdulillah maanta way aragnimo ayay nagu soo kordhayaan laakiinse maanta xilligan muhiimka ugu weyn waxa weeyaan caruurta Soomaaliyeed ay hadda soo korayaan ma ahan qofkii shalay dheeli jiray ma ahan qofkii shalay magac lahaan jiray oo si hadda dadka cusub dadka hadda jiro waa inaynu kharash gelinaa waa inaynu website-yadii waxaad markaan arko waxaan moodaa inaan dad dhalinyaradii hore ama ciyaartooydii hore is xayeysiinayaan marka way fiican tahay inaan way arag ka korsano lala sheekaysto laakiinse waa inay jaanisiyaan waliba gaar ahaan dadka businesska Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa dhalinyarada inay fan geliyaan waayo dhalinyaradu weeyaan dadka sumcadda soo celin karo ma ahan ciyaartooy hore u dheeli jiray hadduu maanta ciyaaro halkan wax faa'iido soo kordhinaya ummadda Soomaaliyeed u soo kordhinaysa ma jiro marka taas ayaan arkaa macnaha aniga ahaan waxaan dhihi lahay dhalinyaro adiguna dadaala dadkii waaweynaa ee sportska markii hore ciyaari jireen inay jaaniska ay siiyaan dhalinyarada maanta jirta taasaan ugu talin lahay okay magan soo jeedid waxa noo yimid mahigaan ama roob aan la filanay ciyaartina meel fiican ay maraysaa marka ciyaarta si fiican ay ciyaar badan u daawatay footballkan aad ay u xiisaysaa marka bal adoo diblomaatiga no si saadaali as experience saadaal noo sameeyaa ku badanaya ciyaartan al-hijra iyo Leicester Stars runtii runaantii ma saadalan karo waayo waxaan halkan joogaa muddo 2 week markaan arkay ciyaaraha habka ay u ciyaarayaan waxaan dhihi karaa labada koox maanta ugu ciyaar fiican inay yihiin labada finalka jooga runtiina labadoodaba waan ka helay ciyaarta habka ay u dheelayaan ciyaar qurxanaantooda iyo kulil macnaha aniga ahaan wax saadaalin aan dhihi karo hadirtaan kooxdaas badinaysa ma jiraan laakiin waxaan huwa kooxdii ciyaar wanaagsan inay mar walba badinayso runtii adinaad waxaan rabaa inaan hadiyad ku doonsiyo aad u mahadsantahay magan adiga iyo waliba Universal TV hadiyadaas oo ah runtii table tennis racket yar
kuna saxiixaya saxiixeeda aad iyo aad u mahadsan tahay daawadayaal sidaad u jeedaan magan daahir wuxuu run ahaantii noo sharfay inuuna siiyo rakad yar oo lagu cayaaro kubadda miiska Universal TV teamka sportiga annagoo dhan wada siiyey aad ayuu u mahadsan runtiina waa wax loo baahan yahay thank you very much waa mahadsan tahay daawadayaal wuxuu ahaa magan daahir oo aan kula kulmay magaalada Leicester aan la yeeshay waraysigan aan kula yeeshay magaalada Leicester ee cariga Ingiriiska waqti uu da'ayo roob mahigaana roobkan anaga kama cararno waayo waxaan ka nimid Soomaaliya roobkan aad ayaan u jecleen intaan hawada kulmi doono aniga iyo teamka soo saarayaasha Beriq cameramanka iyo editorka oo ah Jibriil Maxamed Jibriil iyo anoo ah Cabdinaasir waxaan hawada kaga tagayaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh